الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخوتي في العقيدة waxaan in sha allahu tacaala intii alla iga waafajiyo ka odhan doonaa adduunkan iyo qiimaha uu ku leeyahay alle subxaana wa tacaala agtiisa. adduunka aan maanta joognaa waa waxa bini aadamka oo dhami mutasaaximka ku yahay, waa waxa dadba isku hayo, loo loolamayo, la kala boobayo, la kala riixanayo. adduunkan maanta jooga waa kan dadka intiisa badani hadduu soo galo uu farxayo. xoola ku soo galaan ama uu qofku kharash helo yafrax, hadduu waayo uu cadhoonayo dudayo ama uu qadarka maagayo. adduunkan maanta joogay ah mid qofku markuu waayo wax ku colaadinayo, ku dagaalamayo, helistiisa uu cid ku xidhiidhinayo, ku soo dhawaynayo. qofka muslimkii wuxuu rumaysan yahay ilaahi subxaana wa tacaala wax walba siduu u qiimeeyey, intuu adduunkani qiimo agtiisa alle ka leeyahay subxaana wa tacaala. intee ayaa loo baahan yahay qofka muslimkii inuu kala xidhiidho? ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya yaa ayuha aladiina aamanuu ma lakum ida qiila lakum infiruu fi sabiili اllahi اthaaqaltum ila alard araditum bilxayaati اddunya fama mataacu lxayaati اddunya fama mataacu lxayaati fi laakhira ila qaliil fama mataacu lxayaati اddunya fi laakhirati ila qaliil. alla subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamaya waa kuwa iimaanka laga helayo baa ilaahay leeyahay. haddii layna yidhaahdo alle jidkiisa u kaca, maxaa dhulka isugu dhejinaysaan baa la yidhi subxaana wa tacaala. ma waxaad raalli ku noqoteen baa ilaahay leeyahay adduunka kan oo aakhiro ka doorateen? war adduunkan bidhbidhkiisa nololeed dhammaantii marka loo qiimeeyo aakhiro la dhinac dhigo waa wax yar baa ilaahay yidhi, ilaa qaliil. waxa ilaahay subxaana wa tacaala nolosha adduun oo dhan ku sifaynaya inay tahay mataac. mataac fi luga waxaa la yidhaahdaa maa yutamatacu bihi mima laa yabqa, waxa lagu raaxaysto ee aan waaraynin, waxa waxoogaa la isticmaalo ee markiiba dhammaada, kaas baa la yidhahdaa mataac. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoogu tilmaamayaa qur-aanka adduunkani qiimaha uu ilaahay agtiisa ku leeyahay wuxuu yahay waa mataac baa la yidhi. waa mataaco markiiba wuu dhammaanaya. waxaa alle subxaana wa tacaala mataacnimadaa ku tilmaamayaa aayaad qur-aan oo tiro badan. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب
qul mataacu dunya qaliil wاlآakhiraةu khayr liman اtaqa. ilahay wuxuu leeyahy waxay markii la waajib yeelay inay ilaahay tiisa u diriraan waxay odhanayaan maa dibna looga dhigo. waxaad ku tidhaahdaa baa ilaahay yidhi qul mataacu dunya qaliil, waar adduunkan inta lagaga raaxaystaa waa wax yar baa ilaahay yidhi, ee aakhiro ayaa khayru liman itaqaa, qofka alla ka cabsada subxaana wa tacaala aakhira ayaa u fiican baa la yidhi. waxaa ilaahay qur-aanka ku leeyahy wafarixuu bilxayaati اdunya wama alxayaatu اdunya fi laakhirati ila mataac. nolosha adduun bay ku farxeen, adduunna aakhira haddii loo eego waa mataacun baa la yidhi subxaana wa tacaala. dalika mataacu lxayaati اdunya wallahu cindahu xusnu lma'aab. dunidatan aynu markaasi ku kor noolnahay waa dhaldhalaal yar oo dhammaanaya. ilahay baa wuxuu leeyahy inaa jacalnaa maa cala alardi ziinatan laha. waxaan ka yeelay baa ilaahay leeyahy dhulka waxa kor saaran oo dhan ziina, wax lagu qurxiyo. maxaa loo qurqurxiyey? linabluwahum ayuhum axsanu camala wainaa lajaaciluuna maa calayha saciida jurza. waxaan u dhaldhalaaliyey baa ilaahay leeyahay adduunka kan in aan dadka ku itixaamo, inaan eego dadka kan iyo mawqifka ay adduunka iska taagaan. dabeetana waxaan ka dhigi doonaa baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala meel biriya oo la tirtiro. adduunku wuu yaryi, waa qaliil baa ilaahay yidhi. qiladu xaggay kaga jirtaa? yani markaad leedahay shay wuu yar yahay waa in shay kaloo la dhinac dhigaa u jiro. waayo waa laba shay markaad isku qiimaysa ad odhanaysaa kana waa yaryay kana waa badan yahay. maxaa la dhinac dhigayaa lagu qiimaynaya? waxaa la dhinac dhigayaa waxa ay dadku ka dooranayaan. bal tu'hiruuna alxayaata addunya waalaakhiratu khayru waabqa. waxaa la dhinac dhigayaa waa aakhiro. adduunka noloshiisaad dooranaysaan baa ilaahay leeyahy bal tuxibuuna alcaajila watadaruuna alaakhira. adduunka waxaa la dhinac dhigaya marka koowaad ee yaraantiisa lagu tilmaamaya waa aakhiro. waayo labada inaad mid doorato weeyaan, inuu qofku aakhiro iyo naciimkeeda doorto oo adduunkan u arko daaru ibtilaa inay tahay, iyo inuu adduunka bidhbidhkiisa iyo ku raaxaysigiisa jeclaysto oo aakhiro ilaabo aanu isku mashquulin. waa labada mid. idan adduunku waa qaliil. wuxuu qaliil ku yahay jannada waxa yaallaa badan. jannada ilaahay wuxuu leeyahy waa nicmo tiro badan, waa beero, waa jannooyin, waa webiyaal, waa kullu shay lagu nacimaysto. wa faakihata mima yatakhayaruun walaxmi tayri mima yashtahuun. wax wal oo bini aadamku uu baahdaaba way taallaa. idan adduunku wuu yaryey, wuxuu yaryey marka aakhiro loo eego. sidaa awgeed buu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahy ma dunya fi laakhira ila kama yajcal axadukum isbacahu hadihi fi lyam falyandur bima yarjic. adduunku aakhiro marka la dhinac dhiga buu nebigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu la mid yahay nin farta biyo geliyey badda. haddaad farta geliso maxaa kaa soo raacaya? yani badda biyaha haddaad farta geliso intaa in lag baa kusoo raacaysa. yani gacantaadu inay qoydo unbaa kusoo raacaya. intee in leg baa hadhaysa? badii oo dhan baa hadhaysa. haddii adduun iyo aakhiro laysdhinac dhigo min xaytu alkatra, tira badnin marka laga eegayo haddii laysdhinac dhigo waxay u dhigmaan baa la leeyahy subxaana wa tacaala in ay tahay waxaa yar waxa kaa soo raacaya. aakhiro nimcadeeduna inay tahay tu tiro badan leh. sidaa awgeed ayaa waxaan leenahay adduunku wuu yaryi marka loo eego aakhiro nimcadeeda. adduunku baynu leenahay waa fani, wuu dhammaanaya. aakhira se way waaraysaa. oo adduunka iyo waxa nimco yaalloo dhan waa laba miduun. inaad adigu zuusho oo ka tagtid oo geeriyo ku dayn weydo, iyo inuu isagu kaa tago. intaad ururiso in aafo kale ku dhacdo, dagaal dhaco, balaayo kala dhacdo, mashkilada dhacdo, khasaare dhaco, markabkaad raratay degto, dayradaad wax saartay degto,
si kale inaad ukhasaarto. idan inuu isagu kaa tago iyo inaad adigu ka tagto labada mid un baad ku jirtaa. ama aakhiro ukuluhaa daa'im wadilluhaa baa ilahay yidhi, waxaa lagu cunayaa waa daa'im, isma bedelayso, hooskeed iyo hadhkeed iyo nimcadeed oo dhami waa joogto, aafa kuma dhacayso, waa daaru salaam, daarta nabadgelyada weeyaan. ilahay baa wuxuu leeyay maa cindakum yanfad, waxa agtiina yaalloo dhami waa dhammaanayaa baa ilahay leeyay. wamaa cinda allahi baaq, ilaahay se agtiisa waxa yaallaa ma dhammaadaan. bale adduunka waad ururinaysaa, laakiin intaad intifaacsanaysaa baa yar. waa laga yaabaa inaad malaayiin soo ururiso, laakiin adiga maxaa kuu arsaaqi aad ka leeday? waxaad aakhira isaga sii horu marisay, waxaad cuntay, waxaad huwatay, inahaas baad adigu ku leeday. inta kale dad kale unbaa dhaxlaya ama u hadhaya, adiga risqaaga kama mid aha. inta kale dad kale waad soo kasbaday oo waad soo ururisuun, laakiin risqigaagii maaha cid kalaa u hadhaysa. sida daraaddeed waabay kula degdeg badantay sida ay ku dhaafayso. aakhira marka la taga baa ilaahay wuxuu leeyahy maa labithuu hayra saaca. marka la weydiiyo waxaabaad moodaa dunidii la sheegayeyba saacad in leeg inaan la soo joogin. saacad intay leegta waa wakti aada u yar. yani waxaa la tilmaamaya sida ay u dhammaan doonto, kaanahum yawma yarawnaha lam yalbathuu ilaa cashiyatan aw duxaaha. aakhire markayse soo taagaan baa ilaahay leeyahy qiyaamuhu dhaco, waxay u ekaanayaan inaanay gelin hore ama gelin dambe on wixii ay dunida soo joogeen oo dhamayna intaatay. yaraanteedii iyo sida zamankeedii u degdegay. qofka maanta 90 jira way la yartay un intii uu soo maray, maalmuun bay la tahay, dhadhan badan ma leh. qofka 20 soo jirayna maalmuun bay la tahay, qofka 40 joogaana maalmuun bay la tahay. idan waa wax yar, qofna ismale waad ka dheregtay ama in wax laga qaadaba ka qaada. sida daraaddeed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aanka in badan ku tilmaamaya اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. إلهي وحط الماما يا سبحانه وتعالى أدون كان لتشوقه واسكا اللعب يلهوي بالليل دال عرورات. أما اللهوي ددوا وين يكون داشان waxoogaa dhaldhalaala, in faana, in urursiya iyo caruur iyo awlaad iyo wax la nooca, waxoo dhan marka la isku dara baa ilahay yidhi muxuu la mid yahay kamathali haytin acjaba alkufaara nabaatu. wuxuu la mid yahay baa la yidhi roob da-ay oo beeralayda farxad geliyey. roobku markuu do-o ee doogu soo baxo intee ileg buu joogaa? yacni bil laba intaanu jooginba dabayl baa ku dhacda oo biyihii baa yaraada oo dib buu u engegaa oo dhulkii quruxda badnaa dhammaantii wuxuu noqdaa maxay? meel cidloo lama degaa buu ekaada. saa daraaddeed baa ilahay leeyay inamaa mathalu lxayaati dunya kamaa in anzalnaahu min alsamaa'i faاkhtalata bihi nabaatu lard faasbaxa hashiiman tadruuhu riyaax. adduunkaa joogtaan oo dhan marka la isku daro baa ilahay leeyay subxaanahu wa tacaala wuxuu la mid yahay biyihii cirka ka soo da-ay ee dhulka ku darsamay ee waxa dadku cunaa ka soo baxeen ee dabeetana markiiba intuu engegay xaabada iyo xanshashka iyo xashiiska noqday. aayaad tiro badan baa ilahay masalada ku tilmaamaya. wadrib mathala alxayaati dunya kama in anzalnaahu min alsamaa'i faاkhtalata bihi nabaatu lard ama inama mathalu alxayaati dunya kama in anzalnaahu min alsamaa'i faاkhtalata bihi nabaatu lard. ilahay aayaad qur-aan oo tiro badanna buu ku sheegaya. kullu hadihi alaayaat waxay sheegayaan adduunkan iyo yaraantiisa iyo sida uu markiiba kuu dhaafayo ee aanu ahayn wax sii raagaya. waxaa intaa weliba raacda nicamka yaalla adduunku dhammaantood waa mukadara, ama nimco saafiya maaha, waa nimco nuqsaanteeda leh. maalan caruurtu waa nimco alla uu bixiyo subxaana wa tacaala, laakiin haddana waa hawl kale. tarbiyeyntooda iyo kobcintooda iyo ilaalintooda iyo weyntooda qofka aan haysanin wuxuu u arkaa nimca inay ka maqantay. ka haystee la siiyeyna waa daalan yahay, oo isagoo nimco u arkaa ayuu haddana ku daalan yahay. waa nimco nuqsaan leh. nicamka dunida yaallo oo dhami waa nooca. aakhiro ilaahay subxaana wa tacaala matala khamru ku sheegay uu bini aadamku ku tafakuho ku raaxaysanayo, laakiin waxaa la leeyahay ka aakhiro
dhib ma leh, sakrad ma leh, wareer ma leh, matag ma leh, calool xanuun ma leh. ka adduunku intaba wuu leeyahy. ka aakhiro waxa la yidhi waa ladatin lishaaribin, waa mid macaan. ka adduunku wuu kululiyay bay yidhahdaan afkaa caddaadoo googo-a dadka caba. ka aakhiro ilaahay wuxuu leeyahay laa fiiha hawl, ma hawl kuma jiro dawiki maysid ama calool xanuun ma leh, walaa hum canha yunzifuun, labada midna ma leh. ka adduunku maskaxduu kaa qaadaya, calooshaa ku xanuunayso waa kuwa axadda aragteen waa wada matagaan. sabtida habeenka axadda ay xoog u cabaa gaalada meelahan joogta. subaxa axadda waxaa loo yaqaana subaxii wareerka, waayo qof waliba khamrigii uu soo cabay saaka ama wuu matagaya ama madaxaa xanuunayo wuu jiifaa, ma kacaan maalinta dambe. ka adduunku dhibtaasoo dhan buu leeyahy, ama ka aakhiro waxaasoo dhan male. idan nicmo kastoo adduunka taalla noocay doontaba ha noqotee waxay leedahay nuqsaan baa la socota. amaa nicamka aakhiro yaalla iyagu nuqsaantaa ma leh. masalan maal soo qabo, xoolo. adduunka xooluhu waa wax la jeceliyey, inuu qofka bini aadamkii helo aad buu ugu warwaraya, u raadcaynaya. laakiin markuu helo ugu warwar badan yihi siduu u ilaalin lahaa, siduu u dhawri lahaa, siduu u korin lahaa, saanay uga lumi lahayn, markaasaa warwarkeeda ugu tiro badan le uu qofku taagan yahy. adduunka kani waxaynu leenahay waa wax xaqiiqa cinda allahi subxaana wa tacaala. waayo inuu liito waxa kuugu filan qur-aan badan oo soo arooray. masalan ilahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy walowlaa an yakuna annaasu ummatan waaxida lajacalnaa liman yakfuru biاraxmani libuyuutihim suqafan min fida wamacaarija calayha yadharuun walibuyuutihim abwaaba wasurura calayha yataki'uuna wazukrufa wain kulu dalika lama mataacu lxayaati اdunya wاlآakhiraةu cinda rabbika lilmuttaqiin waman yacshu can dikri الraxmani nuqayid lahu shayطaana fahuwa lahu qariin. aayaadkan ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala haddii lala yahay baa ilaahay leeyahay inaanay dadku wada gaaloobaynin. qof kastoo gaaloobo waxaan ku abaalmarin lahaa baa ilaahay leeyahay adduunka gebigiisba. yani inuu kufri abaalmar u noqdaa waxay sheegaysaa xaqaaradiisa iyo liidashadiisa. si awgeed baa ilaahay wuxuu leeyahy qof kastoo ilaahay ka gaalooba waxaan u yeeli lahaa guri saqafku uu fido yahay, silver yahay, iyo macaarij salaamo lagu koro, abwaabtooda guryaha albaabadooda iyo sariiraha waxaan ka dhigi lahaa zukruf iyo dahab iyo mid lagu raaxaysto. waxaasaan uga dhigi lahaa baa ilaahay leeyahy. bimujarad inuu qofku ilaahay ka gaaloobo abaalmar waxaa loo siin lahaa wax liita. soo maahan qofku markuu ilaahay ka gaaloobo ilahay wuxuu siinaya waa wax liita in lagu abaalmariyo. abaalmar waxaan uga dhigi lahaa buu leeyahay alla inaan sariiraha iyo albaabada dahab looga dhigo, saqafka sarana looga dhigo fido iyo silver looga dhigo oo uu noocaa noqdo. laakiin waxaan uga cabsanayaa baa ilaahay leeyahy in dadkao dhami lumaan. adduunye jacaylku inuu dadkao dhan wadada ku wada rido la gaaloobo, taas daraaddeed baa looga cabsanaya. laakiin ilaahay agtiisa qiimo kuma laha. sidaa daraaddeed buu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi xadiidka imaamu axmed iyo tabrani iyo bayhaqi ay warinayaan ee sheekh alalbanina uu xasanka ku tilmaamayo. wuxuu nebigu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayh ina allaha tacaala jacala maa yakruj min bani aadama matala lidunya. ilaahay subxaana wa tacaala bini aadamka wuxuu uga dhigay tusaale waxa bini aadamka ka soo baxa ee saxaraa buu nebigu ku tilmaamaya. yani adduunku wuxuu la mid yahay baa la leeyahy inta suuliga la dhigo musqusha la dhigo. adduunku markaa qiimihiisu waa maxay? saxaradu miya agteena qiimo ka leedahay? soo wax layska fogeeyo oo la asturo oo urteeda layska ilaaliyo oo aragtideeda layska ilaaliyo oo si waa wuxuu qofka bini aadamkii jecel yahay inaanu arag oo urinin oo noocnaba ay ka qarsoonaato. waa wuxuu jecel yahay qofku inay fogaato. nabiguna salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu ku tilmaamaya misaalka waa alla idin siinaya adduunku. xadiid kale imaamu ibnu xibaan iyo tabrani ay warinayaan oo sheekh alalbanina u taxsiinay wuxuu nabigu leeyahy ina maطcamu bnu aadam qad duriba matala lidunya wain qazaxa wamalaxa fandur ilaa ma yasiir. ilaahay wuxuu misaal uga dhigay baa laleeyahay waxa cuntaan ayaa adduunka misaal looga dhigay. xataa buu nabigu leeyahy wain qazaxa, qazaxu waa tawbalka. xataa buu nabigu ku tilmaamayaa
ku dardar basbaas iyo wax lagu dhanaaneeyo iyo milix iyo macaan waxaad doonta ku dar. cunno si kastoo aad uga shaqayso u macaanayso marka la cuno maxay noqotaa? waa isku mid un. haddii la cuno iyadoo aan laga shaqayn oo lagu darin toor iyo milix iyo basal iyo waxba toona iyadoo aan lagu darin haddii la cuno, iyo haddii la cuno iyadoo la dhandhanaaniyo la macmacaaneeyey, natiijada ay soo baxdaa waa isku mid. sidaa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyay salawaatu ullahi wasalaamu calayh, adduunka qiimayntiisu waxay ilaahay agtiisa ka tahay buu nebigu leeyahy, oo mithaal laydinka dhigaya. cunnadaa cunteen xataa milix iyo bahaaraad ku dardara, wax lagu qurqurxiyo o dhan xataa ku dara buu nebigu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayh. waxa ay ku dambaynayso ayuunbuu yahay adduunkuna mid uu ku dambaynayo. waxa kuugu filan nabigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiidka imaamu muslim fii saxiixi uu ku aroorinayo ayaa maalin soo baxay iyadoo saxaabadu la socdaan, dabeetana meel suuquu soo maray. suuqii iyadoo la marayo oo dadkii oo dhami nebiga la socdaan ayuu wuxuu nebigu ku soo baxay salawaatu ullahi wasalaamu calayh orgi yar oo dhukan ama dhaga yaryar oo baktiya. waa neef xoola ah oo orgiya kow, oo marka labaad dhukan ama se dhaga yaryar suu qofku u yaqaano kolba, oo marka saddexaad mayd ah. idan orginimadu dee dadku waxarahay ka jecel yihin, waa qiimo li. inuu dhukanaado fool xumaadaana waa qiimo sii yaraan, inuu bakti yahayna waa mar saddexaad ou sii qiimo beelay. kaasuu nebigu soo maray, saxaabadiina way la socotaa. dabeetana intuu dhegta sidaa u qabtay buu wuxuu ku yidhi, war yaa kan dirham iga siisanaya buu nebigu ku yidhi. waa orgi yaroo bakti ah. ayuu nebigu wuxuu leeyay, yaa gatay, yaa iibsanaya orgigaa baktiga ah oo yaa dirham iga siistay? waxay ku yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiyow maxaan ma jeclin inaanu bilaash u qaadano, yani ma jeclin inaanu yeelanno bay ku yidhaahdeen, ee maxaanu ku falaynaa marka isagoo nooca kan, yani gadashadiisa maxaanu ku falaynaa? su-aashii koowaad ee nebigu weydiiyey waxay ahayd, yaa lacag siisanaya oo hal dirham siisanaya? waxay idhahdeen ma rabno. nebigu su-aal kale ku soo celiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh. wuxuu yidhi, haddaba waxba hayga gadanina. atuxibuuna anahu lakum, ma jeceshinun inaad yeelataan? mulkiya unoo yeesha, jasaan idin siiyo, lacagna ha bixinina, bilaash ku qaata, sidaa yeela buu ku yidhi. waxay idhahdeen, qaaluu wallahi law kaana xayan kaana cayba inahu asak fakayfa wahuwa mayit. waxay idhahdeen, ilaahay rasuulkiisiiyow, hadduu noolaan lahayo orgi nool uu ahaan lahaa, ceeb bay ahaan lahayd inaad yeelato, waayo waa dhukan yihi, waa orgi dhaga yaryaroo fool xun. fakayfa isagoo baktiya maxaad u malaynaysaa bay dhahan ilahay rasuulkiisiiyo. sida daraaddeed inaanu yeelannona ma rabna bay leeyihin, inaanu yeelanno oo hantidayada soo galo kaana ma rabna bay ku yidhaahdeen. markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh, fawallahi ladunya ahwanu cala allahi min hada calaykum. fawallah, nebi maxamed baa dhaaranaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh. dabeetana wuxuu leeyahay, fawallahi, allaan ku dhaartaye, ladunyaa ahwanu cala allahi min hada calaykum. adduunku ilaahay agtiisa waa kaga liitaa, kaga xaqiran yahay kani idinku qiimaha uu agtiina ku leeyahay. orgi baktiya qiimaha uu agteena ku leeyahay waa intee? waa in la aaso oo la iska fogeeyo. qiimuhu agteena ku leeyahay waa kaa, yani qiimo kale oo maadiya ama macnawiya inoo samaynaya ma jiro. nebigu wuxuu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayh, fawallahi ladunyaa ahwanu cala allahi min hada calaykum. adduunka kanaad arkaysaan kaasi wuu kaga qiimo liitaa alle agtii subxaanahu wa tacaala. idan ma aha adduunku dadka muslimkaa, qofka muslimkaa agtiisa wax qiimo weyn le ma aha. adduunyada nooca kani waxa uu nebigu ku tilmaamaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh, law kaanat iddunya tacdilu cinda allahi janaxa bacuuda. adduunkana arkaysaan oo dhame hadday ilaahay agtii garab kaneeca leegtay. kaneeco waa xasharadan yar ee wax dhibta ee dadka qaniinta. insectkaa yar, xasharadaa yar, garabkeedu labada baale ay ku duushaa intay leegiin
marka hore kaneeca yarta oo wax nafla aanay ahayn, haddana kaneeca la qaybiyey, markaasaa waxaa la qaatay garab ka mid a. garab kaneeco intuu qiimo agtaada ka leeyahy, yani kaneecaan qiimo lahayn, waaba garabkeeda. saa daraaddeed buu nabigu wuxuu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayh, kaneeca garabkeed hadday la qiimo tahay adduunku gebigiiba alle agtiisa, maa saqaa kafiran minha shurbata ma, gaal biyo kama dhadhan siiyeen buu nabigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh. idan mar hadday kaneeco garabkeed ka liidato, waanay qiima alle agtiisa kulahayn subxaanahu watacaala, uma aba yeelin gaalkii caba iyo ciddii heshay iyo waxa kan, waayo qiima agtiisa kagama fadhido. xadiidka imaamu tirmidi iyo ibnu waajah baa warinaya, sheekh alalbanina waa saxiix ligayrihi buu ku tilmaamaya. bale nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu tilmaamaya addunya sijnu lmuslim wa jannatu lkafir. adduunku marka la eego waa qofka muslimka ah xabsigiisii buu nebigu ku tilmaamaya, waayo qofka mu'minka ah adduunku wuxuu yahay daaru ibtilaa'in wa imtixaan. wax kasta oo soo gala, ama hanti ha noqdo, magac ha noqdo, maamuus ha noqdo, wax kasta oo nimco ilaahay siiyey wuxuu haystaa inay tahay mid lagu itixaamayo. wuxuu arkayaa mid aakhire la weydiinaya inay tahay. sida daraaddeed adduunkan la arkaya qofka muslimkaa agtiisa xabsi buu ka yahay. xabsigu miyuu yahay meel lagu raaxaysto? yani qof xabsi jeel ku jira oo u arkaya inuu raaxaysanayo miyaad aragtay? waa maya. qofka xabsiga ku jira muxuu ka fikerayaa? goortu ka bixi lahaa iyo meesha ka fiicana u tegi lahaa, waayo wuxuu u arkaa xabsigu inay meeshii u liidatay ee qof bini aadami dego. saa daraaddeed wuxuu raadcaynayaa inuu ka baxo oo freedom u helo, inuu xorriyad helo oo uu baxo meel kaloo lagu nimcaysto. adduunka kani qofka mu'minkaa wuxuu ku yahay xabsigaas, waayo wuxuu raadcaynaya qofka mu'minka inuu ilaahay la kulmo iyo inuu janno galo. jannana waa nimco aad u weyn. saa daraaddeed meesha tani xabsi buu u arkayaa. saa awgeed buu nebigu wuxuu tilmaamaya qofka mu'minkii ilaahay la kulankiisu jecel yahay, munaafiq iyo gaalkuna ilaahay la kulankiisa ayuu necab yahay. waxa uu nebigu ku tilmaamaya addunya malcuuna malcuunun maa fiiha, yani adduunka kan waxaa la tilmaamaya inay tahay sababu zayq, waxyaabaha qofka diintiisa ka weeciya. saa daraaddeed buu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu ku tilmaamaya adduunkani inuu yahay mid ilaahay naxariistiisa laga fogeeyey. waxa joogaana ay malcuun yihiin ilaa iyo 2 qolaa lasoo sheegay, ilaa dikr allahi waman waalaah wa caalimun aw mutacalim. ilaa iyo ilaahay xuskiisa iyo inta ilaahay ku xidhan ee mu'minka ah, iyo qof caalima oo wax garanaya, iyo mid mutacalima oo wax baranaya. intaa waxaan ahayni naf ma laha baa la leeyahy subxaana wa tacaala. adduunka kani waa meel dhib badan, xataa ka shaqayntiisaa dhib ah. haddii aanu qofku wanaagga u adeegsanaynin, waxa uu nebigu ku tilmaamay tacisa cabdu dinaar wa cabdu dirham wa cabdu lkhamiisa in ucطiya radi wain lam yucطa sakit tacisa wantakas waida shika falantaqash طuba licabdin akhidin bicanaani farasihi fi sabiili اllah ashcata ra'suh mugbaratin qadamaah in kana fi lxaraasa kana fi lxaraasa wain kana fi saaqa kana fi saaqa wain ista'dana lam yu'dan lah wain shafaca lam yushfac. xadiidka imaamu albukhaari baa warinaya. wuxuu nabigu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayh, waxaa hoogay qofka diinaarka waa nooc, waa lacagtii dahabka ahayd, qofka dahabka u ah addoon. waxaa liibaanay qofka dirhamka oo silvarka lacagta ahayd, qofka dirhamka addoonka u ah ayaa yani tacis hoogay. waxaa hoogay buu nebigu ku tilmaamaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh cabdulkhamiisa, qatiifada iyo waxan yar in la gogolo qofka addoonka u ah, saad addoon ugu tay. insaanku addoonnimo horta kama baxaba, qofka bini aadamki waa cabd tula xayaati, laakiin marna wuxuu yahay cabdun lilah, ilaahay buu addoon u yahay.
marna waa cabdun lishahwaati nafsihi wa hawaah afaman itakada ilaahahu hawaah ayaa ilahay leeyay bal ka warrama ka waxay naftiisu doontay ilaah ka dhigtay baa la yidhi waxuu caabudo. qofna ilaahay buu ka amar qaataa, qofna shahwaatu nafsigu ka amar qaataa, naftu waxay doonto. haddaad u noolaato xoole inaad xoojiso, subaxii shaqo tag, shanta kac, xidhxidho, shaqo gal, 8 fiidnimo ka soo rawax, shaqadii baad ka habsaamaysaa in yaroo cunaa intaad cunto u seexo, salaada u bood, haddana sii kac, tag, soo noqo, in yar seexo. markuu seexanayo wuxuu seexanaya aroorta iyo shaqada ka habsaami, markuu kalahsay wuxuu kalahsay inuu xoolo soo shaqeeyo. noloshiisa wuxuu u nooliyey inay daraahimi soo gasho. daraahimta soo gasho muxuu ku sameeyaa? gurigunbaa haddana daahiyaha iyo qadiifadaha iyo dahabka iyo intan unbaa la bedelaa, intii horunbaa la raraayo in kalunbaa la dhisaa. waxoo dhan isku dar. dadkuba markaa muxuu addoon u yahy inaad maalin walba daaha bedeshid, waxaad addoon u tahay inaad sariirta bedeshid, waxaad addoon u tahay un gurigan iyo intaa dhex taalla inaad ka shaqaysid, waxaad addoon u tahay oo cimrigaagu dhammaantii uu ku baxay intan qabashadeedii. idan cabdi buu qofku u yahay markuu aakhiro ilaabo ee noloshiisu ay u ekaato intaasi uun. waa cabdi buu u yahay dirhamka iyo diinaarka, cabdi buu u yahay lacag ururinteed. waxaa laga yaabaa lacagta ururinteeda inuu ku xanuunsado, sidii u xoojinayo u shaqaynayo inuu xanuunsado, bal ee markuu soo helo ayay kasii werwer badantay. halkee la dhigaa? baankee lagu ridaa? see looga dhaliyaa? saad usii tiro badin kartaa? bal ee marka uu bilyaneer noqdaa buu ugu sii werwer badan yihi. telefon yari markuu soo dhace la yidhahdo bangi hebel oo aad agshihiisa ku jirtay baa agshihii hoos saaka u dhacay, wadnahayn baa degta. tv-ga caadiga la daawado, kuwa lacagta le xanuun bay ka qaadaa. waayo maalin kastaba ku tags tv-ga uu bidhka siiyo eego, shalayta agshagu iibsaday baa saaka hoos u dhacay, wadnahayni go-da. markabkii alaabta lasoo saaray meel heblaayo ka soo socday ayaa degay, wadnahayn kala go-da. waa qof u nooluun inuu hoos u dego. hadduu wax helana farxad buu la baktiyaa. idan farxaddiisa iyo cadhadiisa iyo naxdintiisa iyo waxelkiisa iyo waxwaagiisa intuba adduunkan kolba dhan u socda ayuu ku xidhan yahay. idan cabdi buu u yihi. waa warwarayaa ma seexdo. muxuu ka warwarsan yahay? safar heblaayo ma soo nabad galay? alaabtii dekeda ma laga soo saaray? airboodka wixii yaalay ma la soo qaaday? arrinkaas see loo galay? sharikaadka waaweyn kuwa lihi shaqaalaha caadiga u shaqeeya iyaga ka liita, waayo shaqaalaha hortood bay inta badan yimaadaan. 12 habeenimona way rawaxaan. marka shaqaal oo dhami rawaxu isagu rawaxaa, waayo isagu waa inuu wixii laga shaqeynayay wixii oo dhan inuu tanziimiyo oo hagaajiyo ayaa sugaysa. idan ninka shaqaali intuu shaqeeyo in ka badan buu shaqeeyaa. intuu cuno ninka shaqaali in ka badanna ma cuno. koobkaa shaah iyo koobkaa kafeega, qadada bariiska ama hilibka ama kalluunka unbaa la wada cuna. bini aadam intaa ka badan ma qaado. bal inta ugu xoogsiga badan lahaa had iyo goor ugu dhadhan liidata. yani qofka faqiirka waxaad moodaa cunadoo dham way isaga dhadhantaa, waa wada macaan. inta badan ilaahay waa caadilo, maba xanuunsadaan, waxbaba ma dhibaan, wax kasta u liqi karaa. way yarta inaad aragto qof hanti haysta oo aan labadiisa jeebba kiniin ka buuxin. kan balar barasharkaa lagu dejiya, kan macaankaa lagu dejiya, kan marka shaaha la cabaya laga horaysiya, kan qadada horteeda la liqaa, kanna waa laga daba liqaa. noloshiisoo dhami waxay ku salaysan tahay miduu ka hor liqo, miduu ka daba liqo, miduu marka shaaha la cabayo ku rido iyo miduu caynkan u galo. idan xataa طacmigeeda ma helo. halka ka u shaqaalo ahi isagu intuu intiisa cuurto isagoo dheregsan uu iska seexdo. saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahay waxa hoogay ninkan adduunka addoonka u ah, waxa hoogay ninkan dirhamka iyo diinaarka addoonka u ah. haddii la siiyo buu nebigu yihi wuu farxaya. waxaa aada u liitaa farxaddaadu inay ku xidhnaato maalintaa dhowr jeer kuu soo dhacdana aada faraxdo, maalintaad waxoogaa yaro weydana dudmadaada laga yaabo oo qofkii ku arkaaba ku yidhaahdo maxaa kugu dhacay, miyaad xanuunsatay? maya wax la-aan baad afka la buuraysaa, ama 2-3 waraaqood aad biilkoodii bixin kari weyday ayaa soo dhacay, aad afka la buuraysaa. nebigu wuxuu leeyahy wain lam yucta sakit, haddii la sii waayana wuu cadhoodaa. nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu kaa cagsigiisa tilmaama. kani waa kufayaa buu leeyahy, haddii la kiciyo xataa isma taagi karayo.
laakiin waxa uu nebigu tilmaamay salawaatu ullahi wasalaamu calayh wanaag wuxuu sugnaaday addoon faraskiisa haysta oo ilaahay jidkii u diriraya oo timuhu basaasaysan yihiin buu nebigu leeyahy oo caguhu booraysan yihiin oo hadduu ciidanka xagga dambe xaraasada wax ilaalinaysa ku jira hadduu xagga saaqa kaga jira yacni aan la kala ogeyn meeluu ciidanka kaga jiro aan qof magac iyo maamuus la ahayn oo hadduu idan dalbado aan idan la siinayn buu shaqadaada wad la leeyahy oo hadduu inshafac hadduu ergo galaan ergadiisa la aqbalayn yani waa maxay waa qof nakiro ka ah mujtamaca agtiisa waa qof nakiro ka ah waa dadku nebigu ammaanayay salawaatu ullahi wasalaamu calayh cumar buu nebigu wuxuu ku yidhi war haddaad aragto nin uways la yidhaahdo ka ducaysa buu nebigu ku yidhi ilaahay bari weydii inuu ilaahay kuu baryo uways buu ku yidhi nebigu waa taabiciinta ninka u khayr badan aad arki doontaan waa nin qabiilada qaran la yidhaahda ka dhashay oo reer muraad ah jilibka muraad la yidhaahda kasii ah oo baras intay beri ku dhacday wada caddaaday oo ilaahay ka bogsiiyey oo mawducu dirhab in hal karawle la saaro oo kale in leegi ay weli bartaasi sii caddahay oo hooye qura leh oo hooyadiina u samafala wuxuu ka mid yahay buu nebigu ku tilmaamaya low aqsama cala allahi la abara ilaahay hadduu ku dhaartana ilaahay dhaartiisa wuu aqbalaa hada rajul isagoo ciidan la socdo yimi mar kaleynu si fiican uga warrami doonaa isagoo ciidan la socdu soo galay cumar oo daydaya wuxuu yidhi war hebel maydi ku jira haabaa la yidhi wuu u yeedho wuxuu yidhi ii ducee nebi maxamed baan maqlay oo leh ninkaa haddaa aragtaan ilaahay dembi dhaaf idiin weydiiyo waa u duceeyey dabeetana wuxuu ku yidhi lama garanay ninkan mujtamacu mu iskaga dhex jiray markii cumar oo yaboohinaya la arkay ayaa lasoo helay dabeetana cumar wuxuu ku yidhi aan waraaq kuu qoro oo waaliga kuufa waa ciraaqdan hadda kuufa meel la yidhaahdo waaliga yacni governorka ama barasaabka fadhiyo kuufi ha ku soo dhaweeya aan waraaq kuugu qoro wuxuu ku yidhi maya cumar waraaqdaa uma baani dadka inaan iskaga dhex jiro aniga aan cidina dadka iga garan ayaan ka jeclay in la yidhaha waa hebel oo laysoo dhaweeyo ma raba buu leeyahy mujtamacaygan ka mid ahaanaya kaas baa liibaanay buu nebigu leeyahy kii magac iyo maamuuska raadinayeyna waxa lagu tilmaamay sida tan waxay leenahay adduunka kani qiimihiisu waxa weeyaan inuu yahay daarun lilimtixaani waalfitna waa wax laysku itixaamayo bal waa wax laysku fitnaynayo nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh ixdaru dunya fa inaha khudratun xulwa waar adduunkan iska ilaaliya buu nebigu yidhi ka digtoonaada sababtu waa maxay waxa weeyaan buu nebigu yidhi waa mid cagaaran greenka dadku waa dooguu jecel yahay oo idinka arkay jardiinooyinka iyo meelaha loo baxo meel abaara dadku jardiine kama dhigto ma fadhiisto waxaa la fadhiistaa meel dhirtu soo baxday oo cagaaran tahay oo magoolan oo aada u qurux badan cunadana dee ta macaan baa loogu jecel yahay inay macaanaato dabeetana nebigu wuxuu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayh adduunku labadaasuu isku darsaday macaan iyo qurux badni buu isku darsanaya waxaana loogu talagalay in laydinku itixaamo ee waar iska ilaaliya buu nebigu yidhi sidaa awgeed buu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu ku tilmaamaya ma dhi'baani jaa'icaani ursila fi ghanam biafsada laha min xirsi almar'i cala almaali waasharaf lidiini xadiis tirmidi warinayo oo saxiixa wuxuu nebigu leeyahay laba yey oo gaajaysan oo xoolo lagu sii daayey yeydu wolb waa bahal wax cuna maca dalik cunista waxa u dheer waa bahal xaasida xoolaha marka hore wuu wada laayaa intuu cunayo qura xayawaanada ugaadhsada qaarkood inta ay cunayaanoo qurun bay qabsadaan oo cunaan inta kale way iskaga tagaan xayawaanada qaarkoodna horta way laayaan hadduu konta neef horiya kusoo baxo konta kaba horta wuu dilaya kadib baa laga yaabaa inuu wax ka cuno wuxuu nabigu yidhi laba yey oo adhi lagu sii daayey laba yey oo adhi lagu sii daayey waa sidee yani waxa weeyaan waxbay gumaadayaan laba yey oo adhi lagu sii daayey sida ay adhiga u fasahaadiyaan qofka diintiisa ugama fasahaad badna
xooladoonka iyo magacdoonka. Yani labayay siday adhiga u galaan ayaa magacdoonka iyo adduunyo doonku, yani dunida qofka bini aadamkii muxuu raadiyaa in la yidhaahdo waa hebel oo la sharfo oo ama madax noqdo ama magac yeesho ama maamuus yeesho, iyo inuu maalqabeen noqdo oo uu xoole helo. labadaas shay buu qofku raadiyaa. labadaasi qofka diintiisa waxay u fasahaadiyaan oo u xumeeyaan buu nabigu leeyahy sida yaydu adhiga u xumayso. maxaa meesha ku jira? waxaa ku jira uu nabigu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayh, xadiidku imaamu tirmidi warinayay iyo ibnu xibaan bay sheekh alalbani saxiixa ku sheegay, ina likulli ummatin fitna wa fitnatu ummati lmaal. waar ummad waliba buu nebigu yidhi imtixaan bay leedahay. fitnadu waa shayga yuftatanu bihi, lagu itixaamo. ummadaydana adduun baa lagu itixaamayaa buu nebigu yidhi. yani adduun badan bay helayaan. adduunku markaasi ma aha helistiisu ma sheegayso wanaag badan, laakiin waa imtixaan. sidaa awgeed buu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiidka saxiixeynka ku yaalla waxaa soo galay isagoo fadhiya ayaa waxaa la keenay xoolo laga keenay Baxrayn. meeshan Baxrayn la yidhahdo muslimiintu markaa furteen jizyadoodii abilcalaa alxadrami saxaabigii la odhan jiray markuu hayay ayaa la soo diray. xoolihiibaa magaalada yimi, dabeetana xoolahaasaa dadka hunguri ka wada galo lagu soo dhadhawaado oo qof waliba aad xoolihii wax ka heshiidiyo nebigu waxa ku siiyo. markuu nebigu arkay dadku say ugu soo dhadhawaanayaanbu wuxuu ku yidhi abshiruu waamilu, waardadow waar bushaaraysta marka hore, waa marka labaad ee rajadiinu ha weynaato. wax fiican maa yusirukum baa helaysaane sida yeela. fawallahi ma alfaqra akhshaa calaykum buu nebigu yidhi, anigu idinkama cabsi qaba buu nebigu leeyahay adduun la-aan, xoolo la-aan, caydhnimo inay wax idin yeesho idinkama cabsi qaba buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh. haddaa maxaa nebigu inooga cabsanaya haddaan caydh laynooga cabsoonaynin? wuxuu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh, walakinii akhshaa an tubsada addunya calaykum. waxaan idinka baqayaa in adduunka laydiin ballaadhiyo sidii kuwii idinka horreeyey loogu ballaadhiyey, oo aad dabeetana ku loolantaan siday ugu loolameen, oo ay dabeetana idin halaagto siday kuwii idinka horreeyaba u halaagtay. yani nebigu wuxuu tilmaamayaa adduunye jacaylku inuu yahay wax halaaga. qofka mu'minka ah waxa looga baahan yahay markaasi waxa weeyaan adduunka inuu qiimaheeda dhabta arko oo aanay noqonin shay ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo diintiisa iyo cibaadadiisa dhaafisa. bale nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh inuu xoolo helo waxaabuu ka doorbiday isagu inuu zuhdi qaato. ilaahay baa kala doorasiiyey inuu nebi addoona noqdo iyo inuu nebi boqoroo xoolo iyo hanti iyo maamul haysta u noqdo. wuxuu doortay nebi aan wax badan haysan inuu ahaado. bale wuxuu damcay reerkii uu la noolaa iyo xaasaskiisii inay noloshaa la wadaagaan basiidkee fudud, nolol fudud in lala wadaago oo aan nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi adduun waa soo gelayay oo adduun badan baa u imanayay. yani markaynu zuhdiga ka warramayna kama warramayna adduunka inaanu soo gelaynin. adduun wuu soo gelayay laakiin nebigu wuu bixinayay. sidaa awgeed ayuu nebigu wuxuu doonay inuu zuhdigiisa iskaga jiro, waxuu cuno iyo wuxuu cababa inay yaraadaan. dabeetana markay yaraanta doonayeen bay haweenkii waxay ku yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisii oo biilka noo kordhi, waxaan rabnaa in biilku intaanu ka bato. qadiyadii nebigu muu yeelin. ilaahay baa markaa qur-aan soo dejiyey nebi maxamed iyo guryihiisii la kala hadlaya. ilaahay wuxuu ku yidhi yaa ayuha nabiyu qul liazwaajik in kuntuna turidna alxayaata addunya waziinataha fatacaalayna umatickuna wausarixkuna saraaxan jamiila. yaa ayuha nabiyu baa ilahay yidhi nebi allow
waxaad ku tidhaahdaa haweenkaaga xaasaskaaga waxaad ku tidhaahdaa in kuntunna turidna alxayaata addunya haddaad rabtaan nolosha adduunyo ah jeceshiin iyo inaad noloshan ku raaxaysataan haddaad rabtaan nolosha adduun iyo ziinadeeda iyo dhaldhalaalkeeda haddaad doonaysaan fatacaalayna isu wada kaalaya haweenka oo dhamow umatickunna waa idin siinayaa waxaa ku raaxaysataan oo ku bidhbidhsataan bisharti laakin wausarixkunna saraaxan jamiila waana idin sii daynaya ku raaxaysta adduunkiina nimcaysta xoolaa idin siinaya waana idin furayaa dhabo alla ku yidhi anugu noloshaydu inaysaan ka bedelato ma doonayo laakiin idinku haddaad tan kala jeceshiin waxaa ku raaxaysataanna waa idin siinaya waana idin furayaa buu nabigu ku yidhi haddaa ilaahay iyo maalinta aakhira doonaysaanna iyo rasuulkiisa inaad raacdaanna dee ilaah iyo rasuulkiisa yeela baa la yidhi waa kuwii doortay ilaah iyo rasuulkiisa inay raacaan sida daraaddeed ayaa nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo meel jiifa ayuu saxaabi usoo galay markaasuu wuxuu arkay nebiga oo salligii yaraayo u ku seexday derme yar ama salli ayuu ku jiifsaday isagoo feedho qaawan dabeetana feedhahii buu kaga sawirmay garabka iyo halkaa ayaa waxaa kaga sawirmay salliga xariijimihiisii saxaabigii markuu nebiga usoo galay buu arkay nebigii oo garabkiisii ay ku sawirantay salligii uu ku jiifay dabeetana uu ka murugooday markaasu wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo law ittakhadnaa laka witaan aan furaash kuusoo samayna bay ku yidhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi maali walidunya waar anigii adduun maxaana kala galay buu ku yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ma ana fi dunya ila karaakibin istadalla taxta shajara uma raaxa watarakaha waar anigii adduun iskuma nihin buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ilaa iyo sidii nin hadhsaday meel hoosa safara oo intuu meel hadhsaday dabeetana iskaga tagay haddaad safar tahay oo ay ku qabsato inaad degto oo meel hadhsatid ma ka fekeraysaa inaad daara ka jeexdid se wuxun baad sileedahay de kollayba mar dhow waad caraabi doontaaye intaad qodaxda iska yaro xaadxaadha unbaad geedkaaga iska yaro hoos jiifsan dabeetana waad iska kici doontaa waad ka tegaysa sida macquulkii waxa weeyaan inaad waxba ka dhisin inaad intaad kala yaro riixriixda un iska jiifsatid dabeetana aad ka carrawdid nebigu wuxuu ku yidhi waar adduunkan aad sheegaysaan ba anigu saasaan ku ahay maalmuun baan yaro jiifayaa dabeetana waxaan tegayaa meel lagu waarayo sidaa daraaddeed anigi iyo adduun waxba naba kala gelin waa xadiidku imaam tirmidi warinayey ee xasanun saxiixa uu ku sheegay arnaudina uu tasxiixinayay waxa kaaga filan in xataa ducada nebiga aanay ku jirin ilaa uu xoolo badan isiido waa jiraa saxaabo ugu duceeyey ilaahu caruur badan iyo maal badan sii wiilkii anas ahay ee u shaqaynayo kale anas ibnu malik allahuma katir maala wa waladah buu ku yidhi ilaahu caruur iyo xoolaba u badi laakiin isagu wuxuu doortaan ka warramaya nebigu wuxuu doortay intuu ilaahay baryo gacmaha kor u taaga buu ilaahay wuxuu ku baryi jiray allahuma ajcal risqa aala muxammadin quuta ilaahu reer nebi maxamed risiqooda in la liqo ka dhig ka waran intuu ilaahay baryo male ilaahu risiq ballaadhan oo caynkan oo kan oo kanana sii wuxuu ilaahay intuu baryabu wuxuu leeyahay allahuma ajcal risqa aala muxammadin kafaafa ilaahay ow nebi maxamedba reerkiisa oo dhan waxay cunaan kafaaf ka dhig wa fii bacdi riwaayaati quuta waxaa kaaga filan inay caaisha tilmaamayso nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh iyo reerkiisu khubs shaciir laga sameeyey shaciirku waa geed xoolahana loo dhigo dadkuna marar ay cunaan waa nooc min qabandiyo heedahaas iyo weliba ah nooca inta badan xoolaha la siiyo dadkuna mararka la iska baahdo wax laga samaysto waxa ay leedahay caaisha khubs shaciir ka samaysan 2 maalmood oo isxiga nebi maxamed kama dhergin ilaa intuu ka dhimanayeyba bale abu hurayra taasi waa caaisha abu hurayrana wuxuu leeyahay reer nebi maxamed
saddex maalmood oo isxiga raashinba kamay dhargin wuxuu doonaba ahaadee sidii nebigu uga geeriyooday. axaadiista aan sheegaya saxiixaynkay ku taallaa labadaasiba. bale cabdiraxmaan ibnu cawf ba wuxuu leeyahy oo ahaa maalqabeenadii muslimiinta ugu weynaa, kharaja rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalam walam yashbac huwa walaa ahluhu min khubzi shaciir. nebi maxamed wuxuu dunida tan ka tegey isagoo aan isaga iyo ehelkii toona khubs kimis shaciir laga sameeyey aanay ka dhargin. xadiidka imaam albizaar baa soo saaray, sheekh albanina saxiix ligayrihi buu ku sheegaya. sahl ibnu sacd saxaabiga la yidhahdo isna wuxuu leeyahy ma shabaca rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalam fii yawmin shabcatayni xataa faariqa dunya. maalin laba jeer nebi maxamed ma dhargin buu leeyahy. yani kuwii hore waxay ahayd laba saddex casho isku xiga ma dhargin, kanina waxa weeyaan maalin qura hadduu xataa dhargay laba jeer cunno kama wada dhargin, mar unuu ka dhargo iskaga tegi weeyaan. yani maalin qura laba goor ma dhargin. waa saxaabo tiro badan saxaabada axaadiista warisay oo tilmaamaysa inay ka ahayd nebiga wax shaa'ica, maadaama sahl iyo cabdiraxmaan iyo abi hurayra iyo caaisha intuba ay warinayaan. bale waxa kugu filan inuu sahl ibnu sacd ku tilmaamayo, wuxuu yihi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu alayh daqiiqda saafiga ah muu arag sidii loo soo bixiyeyba, isagoo qola taabiciina la hadlaya. markaasa waxay ku yidhahdeen oo heedhe, nebiga waktigiisi maydaan manaakil lahayn. manaakishu waxa weeyaan shaandhada, baashan daqiiqda lagaga hufo xashiishka lagaga reebo. manaakil miyaydan lahayn bay ku yidhahdeen. markaasu wuxuu ku yidhi nebi maxamed ba muu arag shaandho salawaatu ullahi wasalaamu aleyh, baashaa wax lagu hufaba maba arag. taabiciintu waxay nool yihiin wakti dambe oo dadku barwaaqaysto xoolo badan la helay. dabeetana su-aal kaley weydiiyeen, waxay ku yidhaahdeen oo haddaad sidaa u cuni jirteen kimis intaa wixii la daqiijiye aan laba kala hufin oo laba shaandhaynin sidaa u cuni jirteen baa la weydiiyey. markaasu wuxuu yihi war anagu intaanu daqiijino, intaanu waxni ku samayno oo cajino burburino ayuun baanu afuufi jirnay sidii masaftii soomaalidu isticmaali jirto oo kale. intaanu kala yaro afuufno ayuun baa wixii duulaana ka duuli jireen, waxa soo hadhana waanu markaa cajiiban jirno, intaasna waa samaysan jirnay bay ku yidhahdeen. ilahay baa qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya isagoo nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu alayhi la hadlaya, laa walaa tamudana caynayka ilaa maa matacnaa bihi azwaaja minhum zahrata alxayaati addunya linaftinahum fiih. indhaha ha u taagin baa ilaahay ku yidhi waxa aanu ugu raaxaynay ee nolosha flowerkeeda ah baa ilaahay yidhi, zahrat alxayaati dunya, flowerka nololeed ee yara aanu dadka qaar siinay ishaadu yay qabanin baa ilaahay ku yidhi. maxaa loo siiyey? linaftinahum fiihi baa ilahay yidhi, in lagu itixaamo. laakin warisqu rabbika khayrun wa abqa, ilaahay arsaaqdiisa iyo jannadiisa iyo nimcooyinka oo agtiisa yaala ayaa ka khayr badan oo ka waaris badan. macnaa dalik waxaynu leenahay adduunka qiimihiisu waxa uu islaamku inoo tilmaamay inuu adduunku wax liitay, inuu xaqiiriyey, inaanu ahayn ama mudnayn wuxuu qof noloshiisa oo dhan siiyo. waxaa laga yaaba maanta dadka jooga waalidku carruurta wuxuu u tarbiyinaya inuu iskuul ka saaro, jaamacad ka saaro, kan ka saaro, iyaga markay intaa ka baxaan inay shaqo bilaabaan. waxaasoo dhamina waa xoogaa xoolaa in la xoogsado. in wax la bartaa wax xun maaha, in la xoogsadaana wax xun maaha, laakiin hamigu inuu loo noolyahay inuu inta noqdo oo ay aakhira meesha ka baxdo ayaa waxa liita ah. waxaan meesha ku jirin inaad shaygii qiimaha lahaa ilowdaba, ama aanu xisaabtankaba kuugu jirin, ama marka uu isagu khatar kaa galayo aanad ogeynba inuu khatar ku jira iyo inaanu ku jirin. diintaadii iyo saad janno u raadin lahayd iyo ilaahay subxaana wa tacaala saad u caabudi lahayd. adduun waxaa lagu tilmaamay inuu qaliil yahay, markaa inuu yariyey, xagga tirada inuu ka yariyey, xagga tayada inuu ka yaryahay oo saxaro la nooc yahay, xagga waarista inuu ka yaryahay oo wakti yar uu jirayo, xagga qiimaha inuu ka yaryahay oo ilahay agtiisa aanu qiimaba ka mudnayn, xag wal oo laga eegaba inuu yaryahay. saa awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu in badan inoogu tilmaamaya inuu yahayba
waxa uu gaalo ku abaalmarin lahaa oo ku kastoo ilaahay ka gaaloobaba guri dahab iyo fido ka samaysan in la siin lahaa haddaan laga cabsoonaynin dadka kuwa kalena inay ku fitmoobaan. waxaan kusoo koobaynaa qur-aanku duruq badan buu u maray, wadooyin badan baa ilaahay u maray in laynoo tilmaamo meeshani wax lagu sii warwaro inaanay noqon. falaa tucjibka amwaaluhum walaa awlaaduhum inama yuriidu allahu liyucadibahum biha fi lxayaati dunya watazhaqa anfusuhum wahum kaafiruun. war waxoogaagan gaalada aan ku dhibaya baa ilaahay yidhi, waa dhib baabay ku tahay, isha hawtaagina baa la leeyahy subxaana wa tacaala. waxaa laynoo tilmaamaya adduunka cidda jeceli inay gaalo uuntahay, aakhiro cidda jecelina inay dad muslimiina yihiin. kelmaddaan idin leeyahay marka waxay tahay dadka maanta jooga waxaa indhahooda ku weynaaday oo la buurmay waxoogaa kan laamiyadan iyo guryaha kan iyo daarahan iyo inta tanba aada ula buurmay. dabeetana waxaa dhacday inay aakhira la yaraatay halkii dadka muslimiinta waxaana ay cagsiga ahaan lahay. dad muslimiin oo xoogsado lacag soo saaraa waa jireen, tujaar muslimiina baa jiray, laakiin lacagtu gacantoodan may dhaafin, qalbiga may degin, noloshiisuna lacag may ahayn ee noloshiisu aakhiro yahay. lacagta waxa uu ku raadinayay ka soo gashay waxayd inuu janno ku helo. sidaa daraaddeed ba kuwii hantida haystay qaar hanti haysta oo 10 almubashiriin ka midaa jiray, cabdiraxmaan ibnu cawf ama cuhmaan ibnu cafaan, laakiin waxay ahaayeen dad hantidoodu aakhiro ula jeeda oo aan adduunka qiimo badan aanu ku lahayn. waxay ahaayeen dad diintooda inay ilaashadaan ay kaga qiimo badnayd adduunkan iyo israacintiisa. waxay ahaayeen dad saacadaha uu aakhiro geliya ay ka badnayd saacada uu adduunka geliyo. yani wax waloo nolosha ah haddaad rabto inaad ka midha dhaliso waa inaad wakti gelisaa. waxaan wakti iyo juhdi iyo awood iyo tamar la gelin natiijo lagama helo. shaqo bilaashi ma jirto. idan waxay ahaayeen dad hantidooda, naftooda, maalkooda intaba ku raadinaya inay aakhiro ku helaan. innagase waxaad moodaa mawaasiintu inay hanti tahay. casriga dambe qofka waxaad moodaa bini aadamnimadiisa in lagu qiimeynayo jeebkiisa inta ku jirta. haddaad $1 haysato qiimahaagu waa $1. haddaad $2 milyan haysato qiimahaagu waa $2 milyan. haddaad 1 bilyan haysato waa 1 bilyan. taa macnaheed waxa weeyaan in dadku maadada lagu qiimeeyey oo bini aadamnimadu intay lunto jeebkiisa waxa ku jira in lagu qiimeeyo, waana wax liita. waxaan kusoo koobaya idinkii annagaba ilaahay subxaana wa tacaala hayna dhowro, dariiqa xaq ahana hayna tusiyo, kuwa islaamnimada ku mintida ee aanay ka lumin alle subxaana wa tacaala haynaga dhigo, diintooda kuwa dhaafsiista iyo aakhiradooda adduunka ee adduunku la yaraada aakhira doorta ilaahay haynaga yeelo subxaana wa tacaala. wallahu aclam billahi tawfiiq. bismi illahi raxmaan raxiim. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka abaalmariyay sheikha sidaa qiimaha leh uu inoogu faahfaahiyey adduunyada iyo qiimaheeda. ilaahayna subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu naga dhigo kuwii adduunyada dhiga halkii ilahay iyo rasuulkiisu dhigaas. halkan waxaan kasoo jeedin doonaa dhowr su-aalood oo ay soo qoreen dadka halkan joogaa insha allahu tacaala. intii aanu ka gaadhnona ayaynu ka jawaabi doonaa haddii ilahay ka dhigo, inagoo ilaalin doona waktiga muxaadarada. su-aasha koobaad waxay leedahay, waxaan ahay gabadh, annagii ninkii waa kala tagnay, aan isqabnay, carruurtiina aniga ayay la joogtaa. marka haddii ramadaanku soo galo oo xilligii fitriga la gaadho, ilmaha fitrigooda ayaa bixinaya, ma anigaa zakaatulfitrigooda bixinaya mise isagaa bixinaya? ilaahay xaq ahayna waafajiyo. awalan wa qabla kulli shay, ninku ilmaha uu dhalay isaga ka mas-uula, nafaqadooda iyo fitrigooda iyo waxooda o dhan isagaa lagu leeyahy. laakiin bisharti islaantuna inay ogolaato ilmaha inuu ninku yeesho. haddaad intaad erido tiraahdo fitrigana isagu ha bixiyo, carruurtana yuu arkin anigu aan haysto, si qurux badan maaha. haddaad ka bixisa adiguna waa khayr inaad carruurtaada ka bixisay.
waa samo aada u fashay wax kaa xumaanaya maaha. waa konton karawna laydinka qaada soo meelaha maaha, 2 galaan oo beriis ama 2 galaan iyo badh beriisa ilmaha dashay inaad ka bixisaa wax weyn maaha oo oday loo raadceeyo, laakiin mas-uuliyaddu asalkaa isagay saarantay. wallahu aclam. su-aasha labaad waxay leedahay, waxaan rabaa inaan ogaado salaadaha sunnada ah ee faralka ka dambeeya tiradooda inta ay leegyihiin iyo qaabka loo tukanayo. salaad sunno oo la tukado ta habeenkii la tukadaaba ugu khayr badan. salaatuleilka salaada la yidhaahdo ayaa marka faralka laga yimaado sunno la tukado kaasa horta u khayr badan, oo nabigu wuxuu ku tilmaamayaa salaad ilaahay loo tukado bacda almaktuuba salaatuleil baa ugu fiican. ilaahayna markuu ammaanayay dadka saalixiinta waatuu ku ammaanay, kaanuu qaliila min alleyli ma yahjacuun wabilasxaari hum yastakfiruun baa ilahay leeyay. kaanuu qaliila min alleyl ma yahjacuun. sunnaha raatibta ahi waa 2 ragcadood oo salaada subax ka horeeya, 2 duhur ka horeeya 2 ka dambeeya, ama 4 ka horeeya 4 ka dambeeya, ama 4 ka horeeya 2 ka dambeeya. intaba duhurka waa la tukan karaa. 2 maqrib ka dambeeya iyo 2 cisho ka dambeeya iyo witirka. qofka muslimka ahi mar raba inaanu witir ka tegin. nebigu safarka iyo xadarkaba 2 salaadood oo sunnaa ka mid aanu ka tegi jirin baa jira. 2 ragcadood ee subaxa ka horeeya wuu tukan jiray. witirku waa salaad keli ah oo ama mid ama 3 ama 5 ama yani salaadun odd number ah kala dhiman, oo ama 1 ragca ama 3 ragca ama 5 ragcadooda iyo wixii lamid ah. witirkaa habeenkiina kamu tegi jiray nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh. maadaama waqtigii salaaduna uu dhow yahay, insha allahu tacaala su-aalaha soo socda aad soo qorteen intooda badan waxaynu dib ugu dhiganaa muxaadarada dambe, maadaama waqtigeedu ka waasicsan yahay. muxaadaradan hadda waxaana kusoo gabagabeynaynaa duca ay ka mid ah dadka walaalaha ee meesha fadhiya ay soo dalbadeen inuu shiiku u duceeyo dad muraadale iyo caruur dadka ay ka jiran yihiin labaduba. kusoo dhawow sheekh. waa idin ducaynaya insha allahu tacaala, laakiin hal mida baan idin xasuusinayaa. 2 qof oo muslimiina oo baahan. qof waa qof muslima oo xanuunsanaya oo wadnaan laga hayo jiifay. nin kalena waa nin muslima oo reerahan Soomaalidu ay maagtaa oo deymaysan oo waxba haysanin. labaduba waxay soo fareen dadka muslimiinta aad la kulanto in wixii aan u weydiin karaan u weydiiyo, wixii aad u bixin kartaan inaad iska ururisaan. uma sheegin qolada masaajidka iyo maamulkiina oo dhan, waayo waxaan u arkay inay sadaqa iska bannaan tahay, dad muslimiina loo ururi karo. idan wixii aad u ururin kartaan inaad ururisaan. kan labaad, ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa dhammaanteen dadka muslimiinta dhibta in alla ka kor qaado, ibtilaaadka in ilaahay u fudaydiyo, adduun iyo aakhiraba in alla inoo wada naxariisto. inta caafimaadka qabta in ilaahay caafimaadka u kordhiyo, inta bugta in ilaahay subxaana wa tacaala bukaanka ka faydo, bukaankooda in alla uga dhigo tahuur iyo ku dembigooda lagu dhaafo, khayrkana dhammaanteen alla ina waafajiyo. midna waa idinku darayaa, sadaqadu waa waxyaabuhu nebigu sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi dadka bukaa inay isku daweeyaan. yani inagu inta badan waxaa laga yaabaa dawada inaynu naqaano unta dhakhtarka. xataa ilaahay waxaynu xasuusanaa bay u badantahay markaad soo daasho, markaad dhakhaatiirtu waxba kuu qaban weydun baad tidhahdaa halay duceeya ama waxay ahayd qofka muslimka marka u horaysta ee qanjirada uu dareemo inuu ilaahay gacmaha kor u taago. ilaahayna ku hoojin maayo haddaad ilaahay si dhaba u barido. waxaanu nebigu tilmaamay daawuu mardaakum bisadaqa. kuwiina xanuunsanaya waxbixinta ku daaweeya buu nebigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh. idan insha allahu kuwa kurbadu haysa haddaa kurbada ka qaadaan, waxaan jeclay rajaynaya in ilaahay subxaana wa tacaala idinkana kurbada idinka qaadi doono. asalaamu calaykum.